wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Maxamed ayaa sheegay in xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seyraar ay qalaaso dhinaca amniga ay ka wadaan magaalada Kismaayo. Shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada Kismaayo ayuu sheegay in mas'uuliyiinta u dulqaadanayeen in ka badan 6 bilood isla markaana ay yihiin kuwa adeegaya dowladda dhexe ee dalka. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland uu dulqaadkii ka dhamaaday isla markaana xilligan wixii ka dambeeya aysan u dulqaadan doonin mas'uuliyiintan uu sheegay in qalalaase ay ka wadaan magaalada Kismaayo. waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa ummadda reer Jubbaland iyo caalamkaba aan ogeysiinayna in muddo 6 bilood aan u adkeysanaynay ragaasi iyagu u adeega dowladda federaalka maskaxdooda iyo aaraadooda ku socda wixii intaa ka dambeeyana aanan u adkeysan doonin wixii ka soo baxana ay iyagu ka jawaabi doonaan dowladda federaalka mas'uuliyadda ay qaadi doonto intaasi waa NFSNF wax ka dambeeya oo dowladda Jubbaland ay sugi doonto ma jiro beesha caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intii aan sulx ku xallin karnay oo aan dhaqan iyo maxaa la yiraahdaa aqoonyahan iyo cid walba iyo shuyuukhba u adeegsan karnay waan u adeegsanay intaa ka badan inay qas iyo qalalaas Jubbaland ka sii ridaan intii lacag loo soo diro ma qaadanayno mana sii socon doonto. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seyraar ayaa labaduba waxay taageerayaashooda magaalada Kismaayo ugu doorteen inay yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaana shalay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ka dhacday shaqaaqooyin kooban kaas oo dhexmaray ciidamo u daacada Cabdinaasir Seyraar iyo kuwa maamulka Jubbaland. muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa siyaasado iska soo horjeeda waxa ay ka jireen deegaanada maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. sidoo kale qalalaasaha ka jira deegaanada maamulka Jubbaland ayaa waxaa kaalin mug leh ka qaadanaysa dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan ciidamo fara badan geysay qaybo ka mid ah gobolka Gado halkaas oo ciidamo fara badan dhawaan ay geysay dowladda Soomaaliya kuwaas oo lagu sheegay inay qaban doonaan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland oo dhawaan 28 bishii tagtay ee January ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Cabdirashiid Janan loo soo gacangeliyo isla markaana ay ka dalbatay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gado si degdeg ah ay u soo qabtaan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ku sugan duleedka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. xilli shalay iska horimaad kooban oo ka dhacay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in xilligaas ay magaalada Kismaayo uu ka socday shir kaas oo dhexmarayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wakiilka qaramada midoobay u qaabishan arrimaha dalka Soomaaliya James Swan iyo safiirka Mareykanka u fadhiya dalkeena Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan kuwaasi ay sameynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. warar hoose ee heshay raadiyo gaalkacyo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland xilliga kulanka uu la qaadanayay mas'uuliyiinta ka tirsan beesha caalamka ee ku sugan magaalada qodobo dhowr ah uu ka tanasulo isla markaana wada hadal buuxda oo la galo dowladda federaalka Soomaaliya balse Axmed Madoobe ayaa la sheegay in qodobo qaar oo ka dhig adeegay inuu hadalkaasi uu qaato ay u soo jeediyeen madaxda ka tirsan beesha caalamka ee kula kulmay magaalada Kismaayo xarunta gobolka. Cabdinaasir Seyraar iyo Cabdirashiid Xidig oo dhinacoodu ay taagan yihiin dad qaar ka mid ah shacabka magaalada Kismaayo ayaa waxay magaalada Kismaayo ka wadaan dhaqdhaqaaq lagu doonayo in lagu mucaarado madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo horey loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland.